weerarkan oo ahaa mid argagixisadu ay la beegsatay gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Nuur ayaa waxa ku nafwaayay inta la xaqiijiyay ilaa 6 ruux oo ku jiray gudoomiyihii gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur. weerarkan ayaa waxa ka dambeeyay sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka Puntland kooxo naflacaari oo ka tirsan maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab. gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Puntland Saahid Maxamed Cali ayaa isagu ugu horeyn ka hadlay weerarkan. waxaan joognaa xarunta gobolka oo maantay uu ka dhacay fal argagixisanimo la isku miidaamiyay gudoomiyihii gobolka. falkaas oo xusnimadaas wax u geeriyooday gudoomiyihii gobolka iyo intii la socotay staafkiisa. waxaan leenahay Allah u naxariisto waa maalin Ramadaana jannada firdaws Allah ka waraabiyo. waxaan u sheegaynaa ummadda reer Gaalkacyood inuu gudoomiyuhu dhuuntay ee u soo dhiman shaqadii uu wadayna aysan halka ku joogsaneyn qolada argagixisadana cidda ay bajanaysay iyo cidda ay isleedahay halka ku hakatan aan looga hakanayn. taliyaha qaybta booliiska gobolka Mudug ee Puntland gaashaanle sare Muumin Cabdi Shire ayaa isla sheegay in arintani aysan nusqaamin doonin howlgallada ciidanka booliiska Puntland. Raxmaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. halkan waxa ku dhintay gudoomiyihii gobolka Mudug oo ayna hadda taariikhdiisa halkan ka sheegeen wuxuu ahaa iyo shaqadu hayay intaba anuu la yaabay mayo waayo si dhaba baan uga wada hadalay arrintaas ku talagal buu ahaa inuu dhiman doono dagaalami doono oo ay ka go'nayd arrintaas sidii bay nooga go'an tahay shaqadaas waan wadaynaa dembigu waa ka hortag iyo ka dabatag shacabka gobolka Mudug waxaan u sheegaynaa haddaan ku guuldaraysanay ka hortagii inaan ka dabatag ka hari doonin meel kasta ay ka shana ugu gali doono. sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan kuwa maamulka gobolka Mudug ee Puntland ayaa iyaguna sheegay in ay xoog saari doonaan la dagaalanka argagixisada iyo ciribtirkooda. ugu dambeynna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa sheegay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. waxaan ugu horeyn taasi u dirayaa gudoomiyihii gobolka Mudug Axmed Muuse iyo dhammaan intii la dhimatay ama ha noqoto staafkiisa gaarka ah ama ha noqoto muwaadiniintii kale. taasi baan ka diraynaa ilaahay ha u naxariisto. waxaan uga tacsiyeenaynaa qoyskii, waxaan uga tacsiyeenaynaa ehladii, waxaan uga tacsiyeenaynaa dhammaan reer Puntland, waxaan uga tacsiyeenaynaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed intii halka ku dhimatay oo gudoomiyuhu ugu horeeyay. sida ay ka hadleen mas'uuliyiintii iga horeysay oo taliyaha qaybta ugu dambeeyo dawladda Puntland waxay halkan ka bilowday magaaladan Gaalkacyo ee gobolkan Mudug shaqo amni oo la rabo falalkii argagixiso ee muddada soo dhacayay ee sharwadayaasha argagixisada ee shabaab ay ka dambeeyeen ee dadka lagu leynayay gobolkan in wax laga qabto. kuwii horena in laga daba tago oo aan saa looga harin, kuwa soo socdana in laga hortago haddii la hayd. waan ognahay qoftiisu gashanay inaan cidna celin karin, waan ognahay qof aantiisu galin inaan cidna dili karin, waan ognahay fal ay tahay inuu dhacayo, laakiin muhiimaddu waxa weeye ka daba tagga iyo sidii looga shaqayn lahaa. dhinaca kalena gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Galmudug Xirsi Yuusuf Barre oo wareysi gaarsiiyay Radio Muqdisho ayaa ka tacsiyay geerida naxdinta leh ee ku timid gudoomiyihii gobolka Mudug Axmed Muuse Nuur oo saaka kooxda naflacaariga Al-Shabaab ay ku qarijiyeen weerar naflacaarinimo ay ka fuliyeen afaafka hore ee xarunta maamulka gobolka Mudug ee Puntland. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.